حبينا بدن بان هردوي حمو بسحدون هردوي انتان يا اوغيد هردوي لهد الواي هردوي حبينا بدن بان هردوي حمو بسحدون هردوي انتان يا اوغيد هردوي لهد الواي هردوي عليها الشيطان هردوي هلالي وايو هردوي يا إيقا هرشوغا عليها الشيطان هردوي هلالي وايو يا إيقا هرشوغا كل اللمع هلالي عوي هنا تدعي كل اللمع هلالي عوي هنا تدعي دخمو أبو سنو وليقى الله يسنو سيدا حولي باحرا أنا أبويا دخمو سيدا حوله باحرا على أبويا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلن وعن أو وناكسن ساحب يالكسو دواذا برامجك ومروها أفريكا وهذا وكلا دقيستان تضباد والباء مركلة قارو مالي نمدا قميستا mar kale kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal alaaba barnaamijka waxaan ku eegnaa dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee ka taagan guud ahaan qaaradda Afrika waxyaabahan ku soo qaadan doona barnaamijka waxaa ka mid noqon doona hantida Robert Mugabe madaxweynihii hore ee dalka Zimbabwe ayaa toddobaadkan la shaaciyay kadib qiimeyn guud oo lagu sameeyay faahfaahinno la xiriira ayaan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal wadahadallo u dhaxeeya wadamada Masar Suudaan iyo Itoobiya ayaa toddobaadkan waxa ay wajigooda labaad uu ka furmay magaalada Qaahira ee dalkaasi Masar inta badan wadahadalladaasi waxaa looga hadlayay arrimaha la xiriira biyo xireenka weyn ee Itoobiya doonayso inay ku sameyso webiga Niilka faahfaahinno ku saabsan ayaan saaxiibayaal idiin soo gudbin doonaa inta uu barnaamijku hawada ku jiro ku dhawaad 26 qof ayaa toddobaadkan ku dhintay shil gaari oo ka dhacay dalka Tunisia faahfaahinno ku saabsan ayaan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal waxaan sidoo kale idiin soo gudbin doonaa urur goboleedkaygaad oo ay ku midaysan yihiin wadamo badan oo Afrikaan ah waxay toddobaadkan doorteen hoggaan cusub haddaba muxuu ka bedeli doonaa arrinka jadwalkii hore ee urur goboleedkaygaad faahfaahinno ayaan ku eegi doonaa wasiirka difaaca ee dalka Itoobiya waxa uu ka hor yimid toddobaadkan qorshe oo wato ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed haddaba muxuu salka ku hayaa faahfaahinno ayaan idinkaga soo gudbin doonaa gabagabada barnaamijka waxaad maqli doontaan heestan كوغدالينا دايرسكي ندودن هدغالي نفسنا درمرو دالمار كالي ديقا كالي أدن كوغدان سيغي qodobada iyo kuwa kale ayaan idiin soo gudbin doonaa haddii Allah awood leh ogolaado mar kale kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal waxaad dhageysanaysaan barnaamijka umuraha Afrika ee toddobaadlaha ah alaaba waxaad maqashaan khamiis walba soo saarista iyo tabinta barnaamijka oo anigoo ah Jila Jaamac Jila dhanka farsamada hagaagsan waxaa iska kaashaday Xasan Axmed Maxamed iyo Liibaan Cabdi Ciise mar kale kulan wacan حبينا بدن بان هردوي حمو بسحدون هردوي
tanya awgeed hurdoy la hadli waaye hurdoy habeen la badan baan hurdoy hamuun ku seexdoon hurdoy tanya awgeed hurdoy la hadli waaye hurdoy cali hashaydan hurdoy haleeli waayo hurdoy ya iga horjooga cali hashaydan hurdoy haleeli waayo ya iga horjooga kulli lama hilabe away hana dadade kulli lama hilabe away hana dadade doqomo abawsano welige halaysane sida xoolihiiba xiranana guboya doqomo abawsano weligeed halaysane sida xoolihiiba xiranana guboya aynu ku bilownaya toddobaadkan waxaa shaaca laga qaaday hantida uu lahaa madaxweynihii hore ee dalka Zimbabwe Master Robert Mugabe. qoyska madaxweynihii hore ee dalka Zimbabwe Robert Mugabe ayaa u gudbiyay maxkamadda sare ee ku taala magaalada Harare ee dalkaasi hantida uu leeyahay madaxweynihii hore ee dalkaasi Robert Mugabe oo asagu lahaa hanti aad u fara badan. wargeyska Herald ee ku hadla codka dawladda dalkaasi Zimbabwe ayaa talaadadii toddobaadkan waxa uu sheegay in gabadha Robert Mugabe ee Bora loo yaqaano ee uu dhalay madaxweynihii hore ee dalkaasi Robert Mugabe oo ku hadashay codka reer Mugabe ay maxkamadda sare u gudbisay cadadka hantida uu ka tagay Robert Mugabe madaxweynihii hore ee dalkaasi Zimbabwe waxayna sheegtay ugu yaraan 10 milyan oo dollar inuu ka tagay oo dollarka Mareykanka ah beero iyo dhowr guri ha yeeshee lama sheegin in uu ka tagay wax dardaaran ah iyo in kale. qareenka qoyskan madaxweynihii hore ee dalkaasi Zimbabwe ayaa sheegay in ay baadigoob ugu jiraan haddii ay jirto dardaaran oo Mugabe ka tagay haddiise la waayo hantidan waxaa loo kala qaybin doonaa marwadii uu ka tagay madaxweynihii hore ee dalkaasi Mugabe iyo 4 carruur ah oo uu dhalay madaxweynihii hore ee dalkaasi Zimbabwe. Master Mugabe ayaa bishii Sebtembar ee sanadkan waxa uu ku dhintay isbitaal ku yaala dalkaasi Singapore 2 sano kadib markay xisbigiisa uu hogaamin jiray ay militariga xooga uga tuureen xukunka wadankaasi. waxa uu madaxweynihii hore ee dalkaasi Zimbabwe Robert Mugabe uu soo hogaaminayay dalkaasi isla markaana uu soo xukumayay muddo 37 sano ah. toddobaadkan waxaa magaalada Qaahire ee dalka Masar uu wada hadal uga furmay dalalka Ethiopia, Sudan iyo Masar oo isku haya isla markaana ku muransan biyaha webiga Niilka oo ah biyo xadkoodu sareeyo. wareegii labaad ee wada hadalka u dhaxeeya dalalka Masar, Sudan iyo Ethiopia ayaa labadii bishan waxa uu ka furmay magaalada Qaahire waxaana inta badan looga wada hadlayay biyo xireen ay doonayso dawladda Ethiopia inay ku sameyso webiga Niilka oo biyo ahaan ka dhaxeeya dalalka Masar, Ethiopia iyo Sudan. inta badan Sudan iyo Masar ayaa doonaya inay qayb buuxda ka qaataan biyaha webiga Niilka ka soo burqaday gudaha wadanka Ethiopia, laakiin dawladda wadanka Ethiopia ayaa doonaysa inay ka dhaliso koronto iyo dhaqaalooyin kale biyaha webiga Niilka kadib markii ay sheegeen inay biyo xireen sameyn doonaan kadibna ay u adeegsan doonaan mashaariic kala duwan oo la doonayo in laga hirgeliyo wadankaasi.
dalalka masar iyo suudaan waxa ay leeyihiin bado waaweyn kuwaasi oo ay inta badan u adeegsan karaan waxyaabaha mashaariicda ah balse Ethiopia ma lahan bad waxa ay kaliya ku tiirsan tahay biyaha webiga Niilka oo ay doonayaan inay ku horumariyaan arrimaha dhaqaale ee wadankaasi maadaama wadankaasi korontooyin looga baahan yahay balse la doonayo dawladda Ethiopia in ay koronto ka soo saarto biyo xireenka ay sheegeen inay ku sameyn doonaan webiga Niilka sanadihii ugu dambeeyay ee waxa ka taagnaa khilaaf xoogan kadib markii Ethiopia cadaysay in xajmi weyn oo biyo xireen ay ka sameey doonto webiga Niilka dawladda Masar ayaa ku dhawaaqday inay xoog u adeegsan doonto burburinta biyo xireen kasta oo ay sameysay Ethiopia ismaandhaafyo badan kadib wada hadal ayaa uga furmay magaalada Qaahira ee dalka Masar waxaana uu wareegiisii labaad ku soo dhamaaday wanaag iyo kala dambeyn balse lama oga halka uu saldhigan doono iyo heshiisyada laga gaari doono hagaag dhanka iyo Tunisia haddii aynu eegno inta la xaqiijiyay 26 qof ayaa dhimatay kadib markii gaari uu qalibnay ay saarayeen dadkaasi waxaana la sheegay in gaarigan uu ahaa gaari nooca xamuulka qaada ah oo ka soo tagay waqooyi galbeed ee dalkaasi Tunisia sida ay sheegeen saraakiisha dawladda ee wadankaasi wasiirada caafimaadka ee dalkaasi Tunisia ayaa sheegtay in 17 qof oo kale ay ku dhaawacmeen shilkaasi kadib hadal ay u jeedisay warbaahinta wadankaasi toddobaadkan waa shilkii ugu weynaa ee ka dhaca dalkaasi Tunisia waxaana wadooyinka loo adkeeyay waxaana wadooyinka loo xayiray saacado kooban kadib dhacitaanka shilkaasi wasiirada ayaa sheegtay in rakaab ka saaraa baskaasi oo dhame ay ahaayeen dad u dhashay dalkaasi Tunisia balse dadka dhaawacyadu soo gaareen sidoo kalena dadka dhaawacyadu soo gaareen ay ahaayeen dadka u dhashay wadankaasi iyo inta dhimatay intaba baskan oo ka soo socdaalay magaalada Tunis ayaa waxa uu ku sii jeeday waqooyi galbeed ee dalkaasi balse dhex ayuu ku qalibmay madaxweynaha dalkaasi iyo ra'iisul wasaaraha intuba waxa ay sheegeen in ay xallin doonaan arrimahan soo laabtay ee shilalka isla markaana ay dhismooyin waaweyn ku sameyn doonaan wadooyinka halista ah ee ku yaala wadankaasi isla toddobaadkan magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia shir madaxeed ay ku yeesheen wadamada ku midaysan ee urur goboleedka IGAD ayaa waxa ay ku soo magacaabeen hogaamin doona ururkaasi shirkan oo 2 maalmood ee toddobaadkan ka socday ayaa waxaa dib u habeyn lagu sameeyay hogaanka ururka iyadoona gudoomiyaha cusub ee urur goboleedka IGAD loo doortay Abdullah Hamdoun oo ah ra'iisul wasaaraha dalka Suudaan Master Hamdoun hogaamiyaha cusub ee urur goboleedka IGAD ayaa ka hor intii uusan noqon ra'iisul wasaaraha dalka ee Suudaan waxa uu xubin ka ahaa guddiga dhaqaalaha qaran ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya IGAD ayaa sidoo kale xogayadeeda cusub waxa ay u dooratay hogaamiye u dhashay dalkaasi Ethiopia waxaana dhawaan magacaabay ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed oo horay u hayay xilka madaxtinimada urur goboleedka IGAD xilka gudoomiyenimada IGAD ayaa waxaa dhawaan isku haystay dalalka Djibouti Kenya iyo sidoo kale Ethiopia oo sidan oo kale isugu qabtay musharaxnimada kursiga midowga Afrika oo ay ku leeyihiin golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo markiisii dambe ururku uu u codeeyay in Kenya ay noqoto Djiboutina ay ku dooday in nidaamka ee ku haboona ay loo marin hagaag saaxiibayaal inta haddii aan uga soo gudubno heestii aan idiin ballan qaadnay bilowga barnaamijka ee toddobaadkan waxa ay gabagabo ahayd barnaamijkii Umuuraha Afrika tan iyo inta ku kulmayno barnaamijkan mid ka xiga tan iyo toddobaadka dambe nabadgelyo duxyada fadhiiste inti sabad daryeela